Wararka naga soo gaaraya degmada Qoryoley ee gobolka Shabeellada Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa ay sheegayaan in saaka rasaas culus laga maqlayo degmadaasi. Dagaalkani ayaa yimid kadib markii dagaalyahano aad u hubeysan oo ka tirsan Al-shabaab ay dhowr ay ka soo weerareen kontaroolyo ku yaala degmada, halkaasi ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan degmada Qoryoley ee gobolka Shabeellada Hoose. Dagaalka ayaa la sheegay inuu ka bilowday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa oo lagu dhiftay bar kontarool oo ciidamadu ay ku sugnaayeen afaafka hore ee degmada Qoryoley ee gobolka Shabeellada Hoose, waxaana xigay rasaas xoogan ay isweydaarsadeen ciidamada dowladda ee ku sugan degmada iyo Al-shabaabkii weerarka ku soo qaaday halkaasi. Dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in qaybo ka mid ah degmada Qoryoley iminka ay ka dagaalamayaan dagaalamayaal ka tirsan Al-shabaab oo weerar culus ku soo qaaday degmada Qoryoley ee gobolka Shabeellada Hoose. Dagaalka ayaa ah mid aad u culus isla markaana ay isku adeegsanayaan ciidamada dowladda iyo Al-shabaab oo midba midka kale uu doonayo inuu ka riixdo booska, maadaama Al-shabaab la sheegay in qaybo ka mid ah degmadu ay ku sugan yihiin. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Ibraahim Aadan Najax oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay fashiliyeen weerar oo Al-shabaab ay ku doonayeen inay ku burburiyaan buundada degmada Qoryoley ee gobolka Shabeellada Hoose. Dadka ku nool degmada Qoryoley ee gobolka Shabeellada Hoose oo la hadlay warbaahintan waxa ay sheegeen in Al-shabaab ay si xoog ah ku soo galeen qaybo ka mid ah degmada Qoryoley ee gobolka Shabeellada Hoose. Ma ahan markii ugu horeysay ee Al-shabaab weerar ay ku soo qaadaan degmada Qoryoley ee gobolka Shabeellada Hoose, waxaana hore ay u dhacday Al-shabaab inay weerar ay ku soo qaadaan degmada Qoryoley ee gobolka Shabeellada Hoose, taasna ay guulo ay ka sheegtaan. Bogaga taageera Al-shabaab ayaa lagu sheegay in weerarkaasi saakay ay ku qaadeen halkaasi ay ka gaareen guulo wax ku ool ah. Maamulka Koonfur Galbeed gaar ahaan gudoomiyaha gobolka ayaa sheegay in weerarka ay soo qaadeen Al-shabaab ay fashiliyeen isla markaana ay iska caabiyeen, waxaana uu sheegay gudoomiyaha gobolka in ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ay ku doonayaan in ay kaga hortagaan Al-shabaab weerarada oo ku soo qaadaya degmada Qoryoley iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Al-shabaab ayaa horey weerar dhowr ah uga qaaday deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwa maamulka Koonfur Galbeed iyo ciidamada AMISOM oo qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM oo garabsiinaya dowladda federaalka Soomaaliya. Al-shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay laba jibaaray weerarada uu ku qaadayo deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM.